us feel proud. In the streets our hands are lifted as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. They forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, I will be stronger, just don't be freedom. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة الكسر دواد برنامج كيف أقداد عيارها تطبعات كان وحنا يدلس سعوتين يا أنا جو ورسمي سيد علي. دعوة البرنامج وحنا كسر قادنا عيارها يدعدون يكون جدا بيك وبدأ عكت عالم كا أنصاق حبينتك وهذا برنامج كينا كوحدة ليفربول أيا الله بيجي إبر كنتم تي لقيت توتنهام عيار كتر سنة ريال كإنجليز كا عيار تاس دعوة شهبون ciyaartii la wada sugayay toddobaadkan waxay ahayd tii dhexmartay Liverpool iyo Tottenham waxayna Liverpool ooda ugu rogtay Tottenham oo waayahan dambe la dhaxsaneyd guulaha istaba jooga ee ay gaadhaysay waxaana qaab ciyaareedka lagu bartay marka la xusuusiyay laacibka reer Senegal ee Sadio Mane kadib markii ay Liverpool gurigeeda ku khaarijisay Tottenham oo caarsanaysay kooxda hoggaanka jiidatay ee Chelsea. Sadio Mane ayaa goolka hore ka dhaliyay daqiiqadii 60aad kadib kubad uu ka helay saaxiibkiisa Wijnaldum isna uu u bedelay gool kaasoo noqday hal gool ciyaarta Liverpool ku hogaaminayso taas kuma maqneen Sadio Mane uu soo rogaal celiyay daqiiqadii 18aad wuxuuna Tottenham ku sii adkeeyay xaalka ciyaar kana sii fiigayay guusha ciyaarta kadib kubadda ay isku khaldeen daafaca Tottenham taasina waxa Liverpool ku haneysay tubta guush ciyaartan waxay ku dhamaatay 2-0 ay Liverpool ku tuntay kooxda ka dhisan London guushan waxa Liverpool u noqonaysaa guusheedii koowaad ee ay gaadhay sanadkan cusub ee 2017 داول حبينتها صدقني أنت هكسر نقطنا سواقبت حبينتها حكتي برنامج كينا كوحدة تشيلسي أيام بربرهلا دافو يدي كوحدة دقيقة دي بارل عيار كرت السنة ريال كإنجليز كا عيار تاس داو شهبون kooxda Burnley ayaa gurigeeda ku soo dhaweysay kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League ee Chelsea taasoo ku haminaysay inay sii wadatay guulihii lagu bartay ee waqtiyadan dambe waxayna durbadiiba iska bilowdeen goolashii lagu yaqaanay waxaana daqiiqadii 7aad goolka koowaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahanka reer Spain ee Pedro Rodriguez kadib kubad uu ka helay saaxiibkiisa Victor Moses laakiin kooxda Turfmoor ku dhashay ismay dhiibin waxayna ku dagaalantay inay iska dhiciyaan Chelsea waxayna daqiiqadii 24aad la yimaadeen goolka barajada kaasoo saxeeyay ciyaaryahankooda Burnley kadib kubad laadka horta ahayd uu si fiican ugu laaday shabaqa isla markaana ku aadiyay taasina waxa noqotay goolkaasina wuxuu noqday taageerayaasha iyo ciyaartoyda Chelsea niyadda ka dilay sidaas kuma joogin Burnley waxay Chelsea tustay inaanay wali horyaalka qaadan ee u taala hawl adag ugu dambeyn ciyaarta waxay ku soo ilaatay 1-1 ay ku kala baxeen Burnley iyo kooxda Chelsea. Gets it back to Matt Lowton. It's a super save by Courtois. داود أنت صدقني كسر نقول حبيتهاس أرسنال وينجر أيه وحبة كم جيران كتير معمي إنه كده جدونا شقده كوحدة أرسنال لما تكحل عيارات كان حبيتهاس إلى ديكت أرسنال وينجر أيه بيني سوتشيدنتي أين رأي تاهل إن معانك أرسنال وأشياء إنه دقت جدونا لما تكحل عيارات كان كوحدة أرسنال كده مركو ومعانك رير فنسيس تحافظ الله الله كلنكي اللبي أبر كجات كادين هول شتى كد عضي إمارات استاديم بلوج حل عيارات كان ورجيهن كهر إيجان ريس رأي أيه شيء إن معانك سوكو يدي وحن كله وهاي جب الشقة لكن وينجر وأرين كذا شواب يري ما أقانا وحقو يري عيان رايت وحمعقوله إن دلنا سببته waxaan soo toosa aroortii xilli hore waxaana shaqada ka baxa ugu dambiyo habeenkii waa hubaal inaan daalana marka aan kulanay laakiin marraba kama aanan hadlin mustaqbalkayga waxa ahayd meel su'aalo iyo jawaabo la isku weydiinayay xubno Diamond Club waxa ahayd fiid hore waxaana joogay dad badan waxaan wada qaadanay casho laakiin aniga iyo ayn si gaar ah uma kulmin waxaan ahayn ilaa 5 qofood waan u riyaaqay talada ah inaan nasto laakiin taas diyaarumayay haatan ayuu yiri Wenger Arsenal ayaa kulankeeda ugu soo horeeyay la ciyaari doonta tartanka Champions League iyagoo martigelin doona kooxda ka dhisan dalka Jarmalka ee Bayern Munich hore u reebtay laba kamid ah saddexdii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay daawadii waxaan soo gaarnay bartamaha barnaamijkeena faaqadaad ciyaaraha Keylor Navas muxuu ka yiri wararka sheegaya booskiisa in la xiriirinayo goolhayaha Manchester United David De Gea xubintaas ila daawada
goolhayaha xulka qaranka Costa Rica Keylor Navas ayaa markale cadeeyay inuu noqon karo goolhayaha lagu aamini karo shabaqa kooxda Real Madrid kadib qaab ciyaareed fiican oo xalay ku soo bandhigay kulankii ay 3-1 ku soo garaaceen Osasuna oo marti ugu hayeen Stadio Al-Sadar. Sodajinkan ayaa sameeyay badbaadina cajiib ah wuxuuna ciyaarta kadib saxaafadda uga hadlay mustaqbalkiisa wuxuuna yiri waan ogeyn inta halkan uu noqonayo mid aad u adag in lagu yimaado gurigooda wax aad u adag laakiin ujeedkanaga waan gaarnay anigu wax aan dareemayaa raaxo aad ayaan ugu kalsoonahay awoodahayga waxaan ku faani karaa inaan kooxdayda badbaadin karo markii la baahdo. Isagoo ka hadlayay wararka David De Gea la xiriirinaya booskiisa Real Madrid ayaa yiri xaqiiqdii waan diganahay waxaan diiradda ku hayaa shaqadayda xaqiiqdii aad ayaan u shaqeeyaa sababtoo ah kaliya ciyaartooyda ugu wanaagsan dunida ayaa joogi kara Madrid badan. Navas ayaa sheegay inuusan marna ka walwalayn wararka la xiriirinaya ka tigaan kooxdiisa Madrid laakiin wuxuusan qarsan inaysan qurux badnayn in macallin waliba shaki la geliyo. daawad haddaan intaa ka soo noqdo xubintaas aan soo qabto xubin kale oo xiiso badan Ibrahimovic ayaa aaminsan inay kooxdiisa Manchester United ay xilli ciyaareedkan ku guuleysan karto 3 koob xubintaas ila daawada Zlatan Ibrahimovic ayaa aaminsan in Manchester United ay xilli ciyaareedkan ku guuleysan karto 3 ka mid ah 4 tartan ee ay ka qayb galayso iyadoo toddobaadkan bilaabatay ciyaarista 4 tartan oo ay ciyaari doonaan bisha February. United ayaa guul ka gaartay Watford kulanka horyaalka Ingiriiska ka tirsan kadib goolal ay dhaliyeen Juan Mata iyo Antonio Martial ka hor inta aysan Khamiista la ciyaarin tartanka Europa League oo ay Khamiista ku soo dhaweynayaan kooxda Zenit halka ay tartanka Emirates FA Cup wareegisa shanaad Blackburn Rovers iyo waliba finalka Carling Cup ay la ciyaari doonaan kooxda Southampton 26 bisha February. Zlatan ayaa la hadlay saxaafadda yirina waxaan u baahanahay inaan si adag u shaqeyno waxa qasab nagu ah inaan kulan fiican ciyaarno tartanka Europa League marka aan qaabilo Zenit koob aanu u tartamayna xilli ciyaareedkan waxaan ku guuleysanay 1 koob waxaan wali u tartamayna 4 koob oo kale waxaan filayaa in 4 koox ee nagu sareyso midkood kaliya ee horyaalka hanato inta kale ay ku bixi doonaan faramadnaan laakiin annagu waxaan qaadi karnaa koobkeeni labaad waxaan wali u tartamaynaa Europa League iyo FA Cup sidaas darteed haddii aynan guuleysan horyaalka Premier League ugu yaraan waxaan isku dayi doonaa 3 koob oo kale. Zlatan ayaa u sheegay kooxdiisa inay kaliya ka fikiraan tooda ee aysan ka fikirin waxa ay sameynayaan kooxaha kale. daawada aan soo qabto xubin kale oo xiiso badan jamaahiirta kooxda Chelsea ayaa cabasho weyn ka buuxiyay in tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte uu shaxdiisa mar kale ka reebay ciyaaryahanka reer Spain Cesc Fabregas. xubintaas daawasho haboon waxaan u noqon karaa andariya biirlaha Chelsea sida uu sheegay Antonio Conte laakiin Cesc Fabregas ayaa wali shaqaysanin inuu boos joogto ah ka helo shaxda Chelsea waqti xaadirkan. xidiga reer Spain oo la barbar dhigay Pirlo ka hor kulanka ay Blues la ciyaarayso Burnley ee horyaalka Premier League ayaa mar kale kamid ah xidigaha kursiga keedka ee garoonka Turf Moor. Fabregas ayaa wadar ka dhigay markasta oo ay Chelsea bedel ku soo geliso laakiin waxa uu awoodi laayahay inuu booska kala baxo N'Golo Kante ama Nemanja Vidic ayba badan oo kamid taageerayaasha Chelsea ayaana soo bandhigay sida ay ugu xun yihiin in ciyaaryahankii hore u soo dheelay Arsenal iyo Barcelona uu mar kale ka maqan yahay shaxdooda kulanka ay la ciyaareen Burnley waxaanay daroonkooda ku muujiyeen markii akoonka rasmiga ah ee Chelsea ugu wartiga ku baahisay shaxda rasmiga ah ee kooxdooda iyagoo durbadiiba bilaabay inay weydiiyaan waxa ku dhacay Cesc Fabregas iyo sababta aan shaxda loogu soo darin. daawada waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijkeena faaqadaada ciyaaraha kooxda Barcelona ayaa sheegtay in daafacooda Alex Vidal uu maqnaan doono inta ka hadhay dhamaadka xilli ciyaareedkan. nafsiib xumo daran ayaa heshay xidiga dib ugu soo noolaaday ee Alex Vidal oo ugu dambeyn ku qanciyay macalinka Luis Enrique inuu noqon karo ciyaaryahan muhiim ka ah kooxda Barcelona kadib qaab ciyaareed fiican oo goolal iyo caawimaad watay oo la soo baxay laakiin ugu dambeyn midaas ayaa noqotay mid uusan sii wadi karin kadib dhaawac xun oo soo gaaray kadib wad ay ku dagaalameen isaga iyo xidiga Alves ee Thiago Hernandez 5 daqiiqo kaliya ayaa ka dhinayd ciyaarta waxayna kooxda Barcelona hogaanka ugu haysay Alves Barcelona ayaana markaasi samaysay 3 bedel ee xaq u lahaayeen taasoo keentay in Vidal lagu qaaday bareelo oo aan la bedelin. xidiga ayaa loola cararay isbitaalka Victoria waxaana macalinka Luis Enrique uu yiri wuxuu hadhaawac xun oo aad looga argagaxo waxaan ka xunnahay wixii soo gaaray uma maleynayo inuu mar kale ciyaari doono xilli ciyaareedkan laakiin waan arki doonaa. jariirada The Sport ee ka soo baxday magaalada Barcelona ayaa qortay kadib baaritiinkii lagu sameeyay ciyaaryahanka Alex Vidal oo lagu sameeyay isbitaalka Victoria
ciyaaryahanku wuxuu seegi doonaa inta ka harsan xilli ciyaareedkan. daawada qodobkaas wuxuu gun iyo gabo u ahaa barnaamijkeenii faaqadaada ciyaaraha toddobaadkan. dhanka kamarada waxaa iga saaciday saaxiibkay Muxyidiin Axmed Weli. edinta kana waxaa gacan weyn ka geystay injineer Ridwaan Bukhari oo warsame Siid Cali oo idinkaga tagaya inta barnaamijka kale aan isugu iman doono. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our hands are lifted as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us.